halkani waa idaacadda raadiyo baraarug media walaabay ugu soo gudbina waxa ka dhacay geega Soomaalida iyo caalamka saaxiibayaal haylaawina inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan lana wadaagtaan saaxiibada oo qaybta kale ee shabakada baraarug news.net iyo qaybteeda kale idaacadda baraarug.com ka geli kara qaybaha kale ee Google walaha xilku ka dhamaaday ee Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo ayaa caaw khudbad u jeediyay oo ay ka duubeen wariyaashiisa gaarka ah ee xafiiska وحيلكان دح فديه بتويدا waxa uu eeda kulul u jeediyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Shariif iyo siyaasiyiin iyo isbaahaysiga mucaaradka ee Soomaaliya uu ku eedeeyay qaar iyagu wada qalalaasa markaana Farmaajo ayaa ka calaalay ciidamada Soomaaliya ee kala qaybsamay ee u kala saftay qaabka qabiil ee ah Daarood iyo Hawiye ayuu ka aad uga cawday Farmaajo oo khudbada uu Farmaajo caawa jeediyay u dhacaysay macnaheedu in uu wali ku sii taagan yahay qaska iyo qalalaasaha iyo khilaafka siyaasadeed ee ka abuurayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya doorasho ugu horeyn aan ugu baaqaya dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeenta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye intii aanu noqon lahayn barakiciyaal waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno waxaan garawsanay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideena iyo badqabkeena shisheeye badan ayaa maskax maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marxabaabin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dana u gaar ah annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno waxaanu diidnay in dhalinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin dowladnimada la burburiyo iyo cidda u hiilinaysa nabadda qaranimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakaci doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda cod bixinta walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib ugu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee golaha shacabka uu meel mariyay waxaa maalinta sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd walina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhameystirayo
heshiiskii 17 Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16 2021 waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17 Sebtembar aan ugu baaqaya inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin balse nasiib darro waxa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dawladda shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah annagu ka dawlad ahaan markasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17 Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Beedhabo 16 Febraayo 2021 waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horeyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen walina ay garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin